walaalahayga qaaliga ah oo ka kooban jaaliyadda Soomaaliyeed UK ee halkan fadhiyo kuna fadhiyo mansab kasta oo aad ku fadhisaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. salaan kadib anigoo ku hadlaya magaca guddiga qaabada waxaan idin mahadcelinayaa ka qaybgalkan kulankan xasaasiga ah ee aad loogu baahan yahay oo aan ku raadinayno cadaalad in loo helo Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo gacan ku dhacday gacan cadow. waxaad ogtihiin 26 bishii Juun in Ikraan Tahliil Faarax nabad sugidda dad ka tirsan ay ka soo wadeen gurigeeda raadka koowaad meesha uu ka bilaabanayo, laakiin ilaa haddaan la annahay raadkeeda meesha ku dambeeyay ayadoo la ogyahay inay ku jirto gacanta dowladda, meyd iyo geeri iyo nololba gacanta dowladda ay ku jirto. hase yeeshee waxaa yaab leh Ikraan oo 2 bilood ku dhow gacanta dowladda ku jirta oo aan la ogeyn dhimatay in kale dowladdan ka hadlaynin. waxaad ogtihiin Prime Minister Roble halkaa yimid in u suurtageli weysay inuu la kulmo waalidkii gabadha dhalay halkaan jooga. waxaad ogtihiin madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin inay ka aamusan yihiin shaqan ay ku leheen Ikraan. waxay yidhaahdeen waxaan u saarnay guddi maxkamadda ciidamada ah. waxaad ogtihiin nabad sugidda way ka tirsaneed inay ka kooban tahay 2 qaybood, mid civil ah iyo mid military ah oo ciidan ah. Ikraan ciidan ma ahayn, waxay ahayd civil ay ahayd. maxkamad military inay baarto qof civil ane caadi ma ah, waa wax nagu cusub. waxay ahayd in loo saaray guddi xaqiiq raadin ah oo dhexdhexaad ah oo Ikraan baaro. hase yeeshee markaad fiirisid mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda xataa ma jecla inay ka hadlaan Ikraan, waayo sababta ay ummadda Soomaaliyeed u qaylinaysa oo ay awlaadaha la soo daayo nolol iyo geeri ay dhaga ka furaysteen wayna ogyihiin oo meel ay ku ogyihiin. waxaan leenahay hala soo daayo gabadhaas nolosheeda haddii ay dhimatay, haddii ay nooshaa nolol soo daayo sax ma ah. mar waxaan isweydiiyaa maxaa keenay inay dowladda waxaan samayso haddana anaa isqanciyo. waxaad ogtihiin ninkii mid Somaliland oo la yiraahdo shaab xukumay oo la yiraahdo Godane ayaa bakaaraha fariistay. wuxuu yiri jaalayaal lacagta cashuurta ah halkaan igu keeno, haddii aad diidaan wiilashiina oo aan qortay oo shaqaaley ah ay xoog idinka soo qaadayaan. way ogolaadeen. waad ogtihiin Fahad iyo Farmaajo iyo inta la shaqeyso niisa waxay ogyihiin haddii Godane Hargeysa ka yimid iyo Burco iyo meel ka fog ka yimid haddii uu bakaaraha xukumi karo oo lacag xoog u qaadi karo in ayagana dadka meesha degan ay qasab ku muquunin karaan. waa wacdahay waxa dhacay. waad ogtihiin 5,000 oo wiil ayaa la weysan yahay oo Soomaaliyeed oo loo malaynayo in laga iibsaday Eritrea. hooyooyin ayaa xamar ka mudaharaaday, dhowr maalmood ay qayliyeen, meesha lagu dameeyey. guddiga loo saaray la yiri ciidankaas ilaa had warka ma hayno meesha gudad. waxaad ogtihiin madaxdii ugu sarreysay Soomaaliya oo ahayd Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa la weeraray, loo diiday xataa waddanka dhoofaan. maalmaha la qaaqayliyey waa laga aamusay. waxaad ogtihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa la weeraray, dhallinyaradii meesha joogtay ayaa kamada lagu doogay, waana laga aamusay. dadkan waxaad moodaa marka in loogu tago in la rarto oo xoog lagu maqooniyo oo la adoonsado, gabdhahooda la kubsado, la laayo, waayo ayagaa raalli ka ah bilxaqiiqa. waxaa ayaan kusoo laabtay barnaamijka oo ah Ikraan Tahliil Faarax waa gabadh dhalinyaro ah oo dhalatay 1996 oo garan kartaan sidii u dayar tahay, aqoon-yahana taf ah, aqoon leh runtii. maanta inay ku jirto gacan dowladeed oo inay nooshahay in kale xataa ay dowladda ka hadlaynin sax ma ah. waa huba Ikraan haddii wax laga qaban waayo oo shacabka Soomaaliyeed ay ku ciwaayaan marka dambe wax ka daran la samayn doonaa, hore loo sameeyey ka daran. marka waxaan leeyahay Soomaalida waa inay kacaan ay ka dhiidiyaan waxa lagu sameeyay Ikraan wixii ka horeeyay
iyo waxa soo socda aan lagu sameeyay بالحقيقة ما لو أتكيسن كرو فأوقتين قبل حساسية قبل هذا أو ديجا أو صوماليات إن حق لو هايستو تذكر هايسنا أحمد جوجان يكون جاز يعني واللي وقتها يكهلين وقتها وقورين فما كان دولة نري متى أنا عرقنا حتى أنا قال كلنا حتى يدين لما تكوين أو صومالي حتى استعمار صومالي رنتي هذا شعب صومالي تعرفوا جدريا إكران أنت لما تكائن وقعان لو بدباديه شرفته يقيم بأمة الصوماليات وما سديد قدومية بدك قمقابة عبد الرحمن معلن آدر يوم سنة هاي حفلة كلن كان ضد بدن الصوماليات أي جوجو أو أي وهريان والدين تا إكرام هذا نوحنا ويريا شينة محمود جهاد أو إكرام أبتجد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخيارتا عليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدة هوري الله الشيقين ميعي عبد الرحمن محمود جهاد إكران أبتيدا أهي ولا شيء قال محمود جهاد هذا الشيء إكران دولدي وحرنتها سيدة الشيء جايو ilaa ay haddana dawladda waxaynu ka hayno ma laha waxaan rabaa horta inaan ilaahdo ilaahigii isku keenay ama hadle iyo guddigii soo qabanqaabeeyay arrintan oo runtii intaan iskugu timid aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama ikraan tahliil faarax loo raadinayo cadaalad inay hesho runtii dawladda waxaa laga rabaa laba arrimood gabadhii waa haynaa oo dambiina gashay ilaa aan dambigaas dhamaysanana soo madaynayno wax la garto waaye gabadhii annaga ma hayno cid haysana ma ogin meelay jirtana ma ogin inay dawladdana labadaas arrimood sheegto dadku waxay aad iyo aad ugu dharagsan yihiin siyaasiyiin badan inay ka hadleen oo gabadhaas darteed u hadleen qaar ay leeyihiin waxaa loo haystaa siyaasad qaar ay leeyihiin siri dawladda ka bixisay qaarba si ay macnaha u sheegayaan sidaas darteed dawladda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha prime ministerka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka in tahliil ikraan tahliil ay cadaalad hesho runtii aamusnaantaan ummadda wax weynay ay u dhibaateynaysaa aamusnaantaan dawladda kuma wanaagsano dadku waxay leeyihiin Fahad Yaasiin haysto laakiin Fahad Yaasiin waddanka madaxweyne uu leeyahay prime minister uu leeyahay baarlamaan uu leeyahay sare iyo hoose marka haddii aan laga hadlin arrintaas runtii wax weyn ayaa isbedeli doono oo ummaddu saa kuma fiicno in lagu haayo runtii waxaan aniga leeyahay walaashii maalin walba waa la wareystaa oo hinteedana subax kasta way dhibaysaa inay soo wacdo aniga dad badan oo meeshan joogana abtiyaal iyo adeeryaal waa joogaan habaryaro iyo eedooyin waa joogaan runtii ikraanna waxaa loogu yimid intaana qofood iyo in ka badanba ay maanta ay wada sugayeen inay ikraan cadaalad hesho waxaa hadalkay kusoo koobayaa dawladda waxaan ka codsanaynaa ikraan inay hesho cadaalad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أبتشينا هذا ما سنة هاي قف كستنا أو صوماليات أو موادنا وحا مهمة إنه عدالة هلا قفنا ما يستاهلوا إلا أفضلته لوحد قدبو ودن كهدو دستور إيه constitution إيه محكمة أي جرو قف كي إيد الله هايستو وإن محكمة لكينا لا سوعد ديا شرعي ودنك wuxuu qabaa 4 iyo 20 saac gudahood qofka in maxkamad lagu soo taago balse ikraan muddo ku dhow 2 bilood ayay maqan tahay oo meel ay jirta aan la garanayn waa nasiib darro haddana waxaan u wacayaa Dr. Abdullahi Hussein Abdi oo ah gabadha adeerkeed بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأنبياء والعليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هول كانوا كله مرر بدن أي إنسان كله وكل كلنا وحين هاي فرحت يورين لكن عاوة ومرويسنا يردي مربنا عيسو ودنا أدبو قراءة صوتنا قبل هذا كانوا هاي تهليل إن إكرا تهليل فرح أو شيء قدره عد لو هيستو يعني حتى هدي قبل دي أما جيري أما نور هدي نور شاين نور سعودي هدي مثلا رق دي نور شيء وماشي تعال سي أنا أحسن نوع أتليست أنا كواحد هاي شعب هناك يو نبت ربا مني ده كان في فضول الأرداي وهم كوت مني لكن هدي أرين كان حلو هلواي أو مدقابا يعني هذا ما دام لي هاي قدي الله صاري قدي قاسو حل وكيني وايو وحقصب لغة أمريكا إن أمريكا نتلعب غانا إن سومالي دا وحي ترادا نمان شلتا دا كاعدني شو هذا كان معلش marka waxaan leenahay yani annaka hadda waa samayn karnaa sida ay sameeyeen dowladda iyo nimanka nabad sugidda waxa ay ku kaceen waa samayn karnaa laakiin waxaan weli rajaan leenahay weli iyo waxaan cabsi ilaah ayaan weli naakinayso marka qof aan ilaah ka cabsanaynin oon xishoonayn haddee ma aqaan si loola dhaqmo ma naqaano laakiin waxaan leenahay war haddii gabadhaas gabar yar 5 jir ah 2 bilood la haysto maxay og tahay informationka laga rabo gabadhaas maxay tahay nothing marka waxaan leenahay gabadha haddaa u haysatiin in lacag la afduubo oo lacag aad rabtiin noo sheega maafiyada talyaaniga maafiyada talyaaniga dadku waa afduubta lacag ka qaataa ma xuma لكن وديستا انت كران كنا وأورورنا وديسيننا حدي لكن اي تهاي كبر يو كتوندون يو مارتي انا مشان اود اللي يعطيتها حدي انا كان وديسنا ودينا مركز ان شاء الله على كل حال وحانو مع الحلينا يا قمقاوي ددكي سو قمقاوي فرحت داوي waxaan u mahadcelinayaa intaan dhalinyaro iyo dad waaweyn gabdho iyo wiilal oo maanta nasoo sharafay oo noo yimid waa mahadsan tihiin waana idinka cudurdaaranayna xoogaa daahi aan daahnayna waa idinka cudurdaaranayna wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdullaahi Xuseen oo ah gabadha adeerkeed haddana waxaan rabaa inaan u yeero محمد كيسان حسين وكمدة جالية غير يوكي أبتجدنا قبلنا أبتجدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هو آدو ما هدعلنا يا دكتور السوق بقابي حفلة قيمها له لغور هذنا أيوه حق إقران تهليل فارح أحمد أون أفتوه سومالي waxay tiraahdaa qof soo jeedo waa la kiciyaa laakiin qof furdo lama qof furdo waa la kiciyaa qof soo jeedo lama kicin karo dawladdan waa soo jeedaa ma kicin karo waayo haddii waxay og tahay oo arrintan gabadha xiran way og tahay waa dhimatay ma dhimanayo wax laga hadlaa ma gabadha dawladdan way og tahay baabuurkii qaadaa loo jeedaa ninkii qaadaa loo jeedaa kaamarada loo sameeyay wax cad waa marka inaan meel kale ka raadino oo nira ma lahaayeen ma igraan waxaa haysta dawladda waa inay keenta wada sheegtaa sababta waxaa gabar yar waa hadda maanta wadanka sir taalo oo qarsoon ma leh madaxtooyada maanta wixii ka dhacayo
صبح بناك اللوجين مركز ستة إجران قريب كرتوامح إيه هاي سوامح وراح يصير صومالي قرصان مالي بدأ ده بروفيشنال ما لا قرين ده وحب أجيوه أو متقان مامل ولكن أسر رأيه وفاد يسل ليه ما يقان مامل ما يقان كلجنت هذا ما أسكت حق وحاول لأن كبدر هدي واحد لوايو أبتي على ركوفه وطلع ديره بينكم شيء مهيرا قال جعل حوالي هدي قصدان تذكر الصومالي أوفر وما سنتي ما إذا ورجعنا هذا شرفوا لي وقبل في عباتين ما شاء الله بدي ذكره وربح شيء كرمه دلتن أو دتك جو لإنكراي ورواية كديلا ولا حري ونيدو قرصمسا ما أنا هاينو ونيدو الدقيسة لكن والله خي ما أنا أركب لقين وصل جدًا معقول ما بركة هدي أنا سوماليا وحوبها هناي عدالة دنا مدة كلو مدة كنت شنينا قدي يلا مقعد ملك وأنا قارة هذا كنت شنينا سويت مقعد قدي يلا مقعد هذا يردي مقعد الله مقعد رزان مقعد هل مال مشري هل مال كوان ولا مد واي قدوا على صارا وحن الأوجين لكن وحن الأوجين قدوا لهم حبيب خمسة قبنا يعني والأوجين مركا قدي وحبيب التراوي وحوبها أن الإيران كنن وكقال السنت ليك لا إلى متقعدين marka fadlan haloo kaco haloo istaago yaana laga baqin dadkii haystay waa la yaqaana madaxtooyada waa ogtahay ninkii aaminsan farmaajo ma ogo wax ka jira male farmaajo waa ogyahay oo ku jiifa wixii wadda ka dhacay waa ogyahay maad marka walaalayaal waxaan leenahay igraan hal la keeno cadaaladda hal tus hal yara way xirantay qofka dambi hadoo galo imale waa geli karaa dambi وحاي لكن إذا سنة ما نذكر وحاي الدنبيل ولا ما نذكر وإذا سنة قف كبرك قف إذا سنة أول ليه ماله جوج من نقال ماله جوج باورك قادم نكره أو جنده وهذا وسعنا ونيكي قادم أغنى نيكي جوج أغنى سلا كريكرة وحسب ما ترى هذا وحي هالقف وحشيء الشيطان وحي لما أغنى هلا شيء ورهال وكبدي وح إغران إلا أفضل بقلاله وأنا اللي هلا قارتين نقطب بركوا على الله إجرام هلا هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد كيسلي حسين هو قبل أبتدأ هذا مهسين هاي دمان ذات كالك كسر قريب قلي وحنيجي شيء جينا إكران وقبل الصوماليات وكم كان أمد الصوماليات أولاً وحين لفظنا الرؤية هاي أن يراد الصوماليات كشقيني هذا دولة الربع إن دبلوس وأساسه مركب وين أساسه كان إكران اللي تجبر الصومالية وأهو ضدين عدالة جدا هذا نوع حرّين ويرو فاطمة محمود وكمده قبلها جالية اليوكي سولو فاطمة وما تنتهي ولكن السلام عليكم جالية اليوكي مرويني مدن ياربا وايدي ود السلام the issue maanta ay isugu imaanay waxay tahay dawladii aan sugeynay ee gobolkeedu dhacay ee haddana maxaa la yiraahdaa isbaaro u dhigatay dhalinyaradii haday wiilal ahaan lahaayeen iyo haday gabdho ahaan lahaayeen iyo haldooradii dalka wax ku soo gudbiyay ee ku soo kordhiyay ee u dambeysay ikraan tahliil marka waxaanu leenahay dhammaan jaaliyada UK hadaynu nahay innaga waa waxa dawladda support gareeyo innaga waa waxa aqliga iyo xoog iyo maalka gelino hordaaradana UK inta ka tagtay imagine inta ay ikraam ugu dambeysay ee ku maqan dawladda tan hadii aan laga dhiidin prime ministerka iyo madaxweynaha gobolkiisu dhacayba iyo inta ka hooseysaba waxa waaye qof walba oo yimaado from UK ama dibadaha staff uu yeelan doonaa wax walba uu ku soo kordhiyana wuxuu ku soo celin doonaa dalka oo gadaal looga yimid dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ilaa iyo gobolka Hiiraan ilaa iyo galgaduud degan waxaan ka codsanaynaa oo si waalidnimo uga codsanaynaa
oo walaaltinimo uga codsanaynaa ikraam tahliil inay la baadi doonaan dadkan Soomaaliyeed iyo waalidiinta ay ka maqan tahay iyo dhammaan ilmaha Soomaaliyeed ee laga wada maqan ee u dambeeyaan kuwa saraakiisha loo qaatay ee la haday ee qaarkood Muqdisho ku xiran qaarkoodna Itoobiya iyo Eritrea iyo meelo kale la geeyay marka waxaa leeyahay kulli koojeer waxaa xanuunka la qaybsanaynaa dhibaatada la qaybsanaynaa hooyooyinkii iyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka maqan tahay aniga oo ka soo jeeda gobolka Galmudug haddana waxaan dareemayaa dhibaatada iyo xanuunka haysto jaaliyada Soomaaliyeed iyo dadka ehelkaba waa mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Faadima hada ma santahay hadana waxaan u yeerayaa Cabdicasiis Ibraahim xildhibaan loo yaqaano soo dhaweey Cabdicasiis waxaan rabaa Cabdicasiis intuusan la wareegin meega inaan su-aal hordhigo international oo public ah oo adinka dhan u qanci doontaan waxaan la soconaa taliska sirdoonka nabad sugidda ciidamada xoogga dalka booliska dhammaan subax walba shaqaalaha lasoo diiwaangeliyo ama shaqaalaha shaqada soo galo hadduu qof ka maqnaado inay ribad galayaan ay dhahaan maanta hebel ma soo xaadirin kuu jiraday kuu dhintay waa la waayay igraan haddii la waayay maxaa keenay in la dhaho inaan diiwaanka lagu qorin xataa la soo sheegin in igraan la waayo بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay ahayd 24 bishii Juun saacado mumkin markii uu la soo xiriiray sarkaal ka tirsan taliska ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee loo yaqaano NISA uuna ii sheegay maqnaanshiyaha sarkaal ka tirsan uu ii sheegay maqnaanshiyaha gabadha aan darteed galabta halkan u joogno ee lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax waxaan bilaabay inaan xiriir la sameeyo gudaha Soomaaliya maadaama aan ka tirsanaan jiray wasaaradii amniga gudaha ee Soomaaliya ahaana afayeenkii iyo la taliyay wasiirkii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaan isku day la sameeyay xiriiro taliyay hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ambassador Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolsho oo gabadha abti u ah iyo dad kale oo fara badan oo ka tirsan hay'adda lafteeda 12 bishii July 9 maalmood kadib markii aan maqlay maqnaanshiyaheeda mar kale ayuu sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee Soomaaliya xiriir la soo sameeyay si uu u ogaado heerka baaritaankayga uu marayo nasiib wanaag 12 bishii July 2021 ayay warbaahintu la hadashay gabadha hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad una sheegtay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed qoyska iyo ehelada gabadha maqan iyo sababta ay u maqan tahay waxaan la yaabay ilaa maanta inaysan ka hadlin dawladdii aan ka tirsanaan jiray madaxweynaha uu ka yahay Fahad ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin waxaa dhici karta markaan Fahad soo qaaday dadka qaar inay su'aalo ka keenaan anigu waxaan ahay ninkii u bixiyay taliyaha ciidanka nabad sugidda ee Soomaaliya inuu yahay milkiilaha madaxweynaha haddii subaxii salaanta aadan ka qaadina anigu waxaan ku jiray dadkii ugu horreeyay ee shaqada dawladda ka tagay dadka qaarkood waxaa lagu xijiyaa nooca sigsaanta uu watay haddii subaxaas ay sheegi waayaan imtixaanka waa ku dhaceen gobonnimadii jamhuuriyadda Soomaaliya ee dadka Soomaaliyeed ay halganka u galeen halkaas ayay maraysaa waxaan rabaa inaan saxaal ka sameeyo ma jiro guddi ay u saartay dawladda maanta ka jirta ama waqtigeedu uu dhamaaday ee madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baaritaanka gabadha maqan ee Ikraan Tahliil Faarax
laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay ogolaatay in gal dacwadeed laga furo marka ma aha inaan isku qaladno dawlad ma jirto u saartay guddi baara iyo hay'adii ay gabadhaasi ka tirsanay sida la ogyahay waxaa shacbiga Soomaaliyeed kaga filnaa in dawladdu ay ku soo ogto gabadha dacwad ruuxa dacwad waa loo qabsan karaa shacbiga Soomaaliyeed inay ku qanciso inay dunuub inay u haysato marka baaritaanka uu dhamaadana loo keeni doono cadaaladda taasi bedelkeeda dawladda afka ayay qabsatay dadka qaar waa dhici kartaa in si kale ay u fasirtaan hadalkayga laakiin waxaan rabaa galabta inaan ama caawa idinla wadaago xaqiiqada sida ay tahay sida la ogyahay baadigoobka loogu jiro halkan waxaan galabta u joognaa baadigoobka loogu jiro Ikraan laakiin anigu weligay mid isma lahayn geel gaal jecel ka maqay macnaha geel gaal jecel uu leeyahay oo xer kale ka soo jeesta lama sheeg waxaan ka hadlaynaa galabta halkan u joogna gabar maqnaanshiyaheeda waa kaaga darana xawaadla abtiyaal u ah gabadha يعني موقعي نمان جد جوك سدا يدين جوك نمان والله هذي هو كقاطان قبل تودا شيء إساحتا أوبت كودا أن لواي كريمبا يقبل دك دلت إنان قلبتا فهد ياسين حاج الظاهر وحن ربا هذا قبيل كحشون إنسان لتعارفوا إلهي سبحانه وتعالى الرحمن ومجده أنا اسم الله هي قبر قال جعل ودلتي أبتياشي ذي حواليه أيام نديره وحسنه حبس الجنكر halkii ay ahayd in hay'adii ay ka tirsanayd iyo dawladii ay u shaqeynaysay ay shir jaraa'id qabato sida shacbiga Soomaaliyeedna ay u sheegto in ay baaritaankooda marka ay soo dhameystiraan cadaaladda la horkeeni doono haddii iyagu aysan hayn oo gacantoodu ay ku maqnayna inay shacbiga u sheegto inay la qaybsanayso walwalka ay ka qabaan maqnaanshiyaha gabadhaas dawladana ay u saari doonto laakiin waxaas oo dhan waa la soo dhaafay marqaatiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa madal waa maanta oo kale marqaatiya la samaystaa masjidna dhagax macnaha haddii masjid la dhisay dhagaxa lagu darsadaa maanta oo kalena hadalkayga waxaan rabaa inaan marqaatiyo u samaysto ogaalkay intii aan ka shaqeynayay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Ikraan waxay ka mid ahayd saraakiisha wax laga weydiiyo amniga guud ee Soomaaliya Ikraan waxay ka mid ahayd maxay u maqan tahay baa la isweydiinaya Ikraan waxay u maqan tahay rabaa inaan idin sheego Ikraan waxay ahayd dadka farakutiriska ah ee warka u hayay imaatinkii saraakiishii ka socotay dalka Eritrea ee magaalada Muqdisho yimid wax yar kadib markii Isayaas Afwerki uu soo boqday magaalada Muqdisho xilligaas oo aan ahaa afayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Ikraan waxay xogogaal u tahay kasokow imaatinkii saraakiisha aan idin sheegay 5,000 ee wiil ee waalidiintood iyo walaalahood casar iyo cishaba ay dariiqyada magaalada Muqdisho iyo goobo ka tirsan Soomaaliya u taagan yihiin sidii ubadkooda ay u heli lahaayeen Ikraan 25 jir aqoon ku filan lahayd qaranka inay ugu adeegtay ahayd Ikraan cabsida iyo walwalka xukuumadda ay ka qabto horaan shacbiga Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale ugu sheegay waraysi 2018 aan siiyay wakaaladda wararka ee loo yaqaano Foreign Policy ee Mareykanka walwalka iyo cabsida aan ka qabo isku dhex milanka xubnihii ka tirsanaan jiray al-shabaab hadaa haysataan Fahad Yaasiin galabta halkan anigu uma soo istaagin inaan amaano wuxuu ka tirsanaa asalkiisu salafi al-ittihad al-shabaab maantana isaga madaxweynaha qarsoon ee Soomaaliya hadaa been haysataan waa igu beenin kartaan gabadhaas waxaa loo waayay ama ay u maqan tahay cabsida iyo walwalka laga qabo in la helo liiska tirada ciidamada ee Soomaaliya ee loo qaaday dalka Eritrea waalidkeed ha ogaadeen shacbiga Soomaaliyeed ha ogaadeen adduunka intiisa kalena ha ogaado walwalka iyo cabsida laga qabo inay gabadhaas soo saarto dokumentiyadii ku jiray
dagaalka u ah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ka tirsanaa. waxaan rabaa xildhibaanaan mikrofoonka loo dhiibay wax badan nama sheegin waa iska iloobaysiin galabta beja ii dhiman waa sheegayaa galabta waxaan halkan ku joognaa magaca dadka Soomaaliyeed tagayna istiraahdaan wuxuu ka wadaa inuu reer hebel sheego hadda ka hor hadalkayga marmarsiyaan u samaysanayaa ninaan marmarsiye samaysan karin dad maaha Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo madaxweyne u noqday Somaliland wuxuu ahaa nin habar awal isaaqa habar awal ah ciise muuse ah galabu dadka la hadlayo wuxuu yiri macnaheedu ma ahan anigu haddii aan ka ahay Somaliland madaxweyne dadkay yani dadkiisu la hadlay wuxuu yiri habar awal ama ciise muuse oo sacad muuse ciise muuse la kala dhaaway wuxuu yiri qoyskaygu macnaheedu ma aha inaanay xaq ahayn inay ka hadlaan ama ku biiraan ama qaybtii ay ku lahaayeen dawladnimada halkaas ka jirta qaybtooda inay helaan sahada waa soo gabagabeynayaa hadalka waxaan rabaa inaan soo ururiyo galabta sida aan horay u sheegay sida aan u dhannahay qabaa'ilka Soomaalida qoyska ehelada gabadha maqan ee Ikraan ayaan halkan ku joognaa dad ayaad ku leedihiin shiyaha gabadhaasi walwalka iyo cabsida ay ka qabaan mar kale in sheegay waxaan warbaahinta ka dhageystay iyagoo leh yaan lagu degdegin dawladda in wax laga sheego si uu ilaashado kursigiisa galabta hortiina waxaan ku taagnahay idinkoo gabdha ah diracyada aad gashantihiin quruxdooda jaakada aan gashanahay sharafan idinla dul joogaa sababtoo ah waxaan diiday dulmiga aan ogaa dhowr sano ka hor markii aan la shaqeynayay dawladda waxaan rabaa mid inaad xusuusataan kuwa ugu jira waxaa la soo gaaray waqtigii doorashada loo dareeri lahaa sheegashadooda halkii ay u gudbin lahaayeen cabashadooda qoyska iyo helada gabadha ay ka maqan tahay afkay qabsadeen waxay isdheheen haddaad ka hadashaan amaad weysaan kursiga aad barida tartanka u galaysaan sabab kale ma jirto qaarkiin waxaa dhici karta inaad dhibsataan hadalka aan gadabta idin leeyahay laakiin kama xishoonayo ama gaaljecel ahaada ama xawaadla ahaada ama Soomaali kale ahaada waxaan rabaa inta inaan idin sheego daahir amiin jeeso wuxuu ka mid yahay dadka idinku matala baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dadka ilaaqa badan ee warbaahinta la hadla sababta uu uga gaabsaday ma isweydiin kartaan cabsida iyo walwalka uu ka qabo waa iiga dambayn doontaan hadalka sababta uu uga gaabsaday waqti doorasho la soo galay si uusan u waayin ama saameyn ugu yeelan kursigiisa ayuu uga gaabsaday gabadhaas ciddigeeda iyo sharafkeeda la banaystay ee inta aad ka warqabtaan xarunta nabad sugidda Soomaaliya oo aan waa dhamaynayaa hadalkaan idinku badiyay xarunta nabad sugidda Soomaaliya waa adag tahay si loo galo waxaan u malaynayaa qaarkiin inaad aragteen qalabka warbaahinta Soomaalidu ay leedahay ee madaxa bannaan inaad ka daawateen muuqaalkii ugu dambeeyay ee laga duubay gabadhaas habeenkii la waayay oo ku beegan 26 bishii Juun oo loo dabaaldegayay sanad guuradii gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay kaga xoroobeen dalka Ingiriiska ma rumaysanaysaan iska daa magaalada Muqdisho degmooyinka ay ka kooban tahay wadada Muqdisho ka aada koonfurta oo afgooye ah wadada Muqdisho ka aada waqooyiga oo balcad ah ciidamo lixaad leh oo sugayay amniga iyo xasiloonida gobolka Banaadir ayaa la dhigay maalmo ka hor halkee aadi baabuurkii lagu qaaday ee aad warbaahinta ka aragteen waxaa la heli karaa raadkeeda gabadha waa la heli karaa welina waa ii muuqdaa in la heli karo waxaan rabaa inaan hadalkayga soo gabagabeeyo waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa gabar la xirto ama la dilo waxay leedahay gabar la xirto oo la dilo iyada dadka aan la hadlayaa waa is yaqaanaan haddii waxaan leeyahay gabadhu haddii ay dhimatayna waxaan la nahay ehel iyo qaraabo waxaan la nahay Soomaali waxaan la nahay Islaam waxaan rabnaa lafaheedii inay helaan qoyskii eheladii iyo qaraabadii gabadha ay ka maqan tahay si ay properly yani si sax ah ugu aastaan haddii ay nooshahayna cadaaladda la horkeeno ayaan darooyinka ugu waaweyn ee aan la kulmay intii aan joogay anigu hadda maanta 12 maalmood aan joogaa magaalada London safarkii ugu dambeeyay aan ka soo noqday
socdaalkii uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble halkan ku yimid wuxuu ka leexleexday ma aha inuu la kulmo gabadha maqan reerkeeda wuxuu si qarsoodi ah ula kulmay xubno ka tirsan qoyskiisa ama diida ama iska yeela maya fiiri waxaan rabaa hadalka waa idinku dheereeyey waa mahadsantihiin waxaan galabta waxaan idinla joogaa aan wax yar idin faan haddaad iga ogolaataan galabta meel la yidhi gabar gaal jecelahaa maqan waa ka maqnaan waaye qalbigaygaa diiday nimanka qaarkood oo albaabada bacda in loo soo dhiga ka baqaayana ma ihi gabadhii ugu horreysay oo aan jeclaadana gaal jecelay ahayd aamina cabdi xasanaa la dhihi jiray waa dhimatay anigoo aan laakiin hiilo aan gaal jecel ka doontaa inaan waayi lahaa galabta ilama aha garabkiinaan joognaa dadka soomaaliyeed oo dhammi waa idiin hiilinayaan wejiyadeenna ma aha kuwa qarsoomi doona taariikhda mar baa la xusuustaa ciise adna waa mahadsan tahay garabkaaga haddii la soo joogsado makarafoonka iska dib waaye waa mahadsantihiin gabadha idinka maqan waa naga maqan tahay annagana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaan ahay aabbe haysta ama dhalay 13 caruur oo 3 gabdhood ay dhinteen 9 wiil iyo 1 gabar aan leeyahay xanuunka ay leedahay iyo laxawga ay leedahay xaaskayga waxaa taqaana luul waxaa taqaana bayluul abay marin jacayl waxaa taqaana gabdho badan oo yaqaan halka la yeelay galabta halka la lagu siiyay hadii la dhaw iskama diideen laakiin kaftankayga ahayda waxaan rabaa inaan idiin sheego hal gabar oo wiil u eg ayaa guriga ii joogta يعني أو حاصر أو يقدم التأي الشيء قبل عن هذا قضاء قبل ماله وحي إلهي كبر ذا قبر سي وهي العمر حاج من صلاة ولا الكيس عبد القادر أيام مرنوج يضو ياسين بلش الجوج قبر الله ينسيه وقت من الدوك أفرت دقيقة أنا متجوج قبل مدة بيسوا عن لكن قبل قال جعل كم كان أنا جاي كم كان تاي الصومالي دي كم كان تاي أنا والله إن كم كان تاي اللي بان وجود من ده قلبت وايد الجوج أتياشي سنما مقنا وامها سنتين dhammaan dadka kulanka imaaday waa mahadsantihiin maqribkii ayaa soo dhow marka qof kasta oo aan halkan siino waxaan ka codsanaynaa inuu soo gaabiyo idinka waa mahadsan raallina ah haddana waxaan u yeerayaa injineer cabdiraxmaan kablo soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والله الصومالية مناسبة سوي يمد وعن الله مركور أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وحان أمهد علينا الله سبحانه عز وجل قدري ما أنت كل كان سوون لمارنا طبعا كل كان وكلا عن وحدها من برورديق وكلا لبجيريادا وكلا قفكي إنه نولي هاي إنه لنتج أن لوجي Soomaalidu waxa u dhaqana inay ixtiraamaan haweenka anagoo dad islaama anagoo dad akhlaaq badan ayaa haddana haweenka iyo dadka loo yaqaan baribageydada haday caruur yihiin haday waayeel dad culus yihiin la ixtiraamo laakiin waxa marxaati laga wada yahay in ay dhacday waxa loo yaqaano in lagu tunto sharafka bani aadamka dabcan sifadii la doona ha noqoto munaasabadan waxaan u imid ikraan awowgeed inaan ahay inaan wada shaqeynay inaan si fiican isu naqaano inaan aqaano waxa ay gashay iyo waxa ay guddo inaan kamid ahaa dadkii ku soo dhaweeyay hay'adda Sodonka Nabadgelyada Qaranka inaan kamid ahaa dadkii ay jaaleen ama wada shaaheen ama ay shaqo wada qabteen waxaan rabaa dhowr point inaan dul istaago ama nuqtaad oo ku saabsan
disappearance-ka ama vampire afka qalaad lagu yidhaha vanish ikraan maba lahaayaba nolol iyo geeri waa buubtaba cerkay gashay arrintaasaana waxaynan dul istaago ikraan waxaa la waayay 26 juun maalin isniin ah 2021 ama 2021 maalinkaas habeenkeedii waxay ka timid xafladii gobolada waqooyi gobolada soori koonfureed xornimada markay ka qaateen isticmaalkii talyaaniga waqooyi waxay ka qaateen 1 luulyo vice versa runtaa habeenkii xafladii 26 juun ikraan ay ka timid waxaa dhacday galabnimadii in la soo wacay dadka u dhow iyo dadka xiriirka u dhow la leh waxay sheegeen ikraan in aysan weligeed ka tegin laptopkeeda nooca laptopka ikraan isticmaalaysay waxaa la dhahayay macbook ikraan waxaa la sheegay inaysan weligeed macbookgeeda qaadan ilaa 2 arrimood inay shaqo u socoto iyo inay dhoof tahay oo dhoofayso habeenkan laka way qaadatay dabcan meeshaas waxaa ka ratimayso nooc shaqo ah inay jirtay waxaa raacaysa ikraan ma ka tagan jirnaa la yiri kabarka ama galka macbookga markaan saas leeyahay arrimahan gudaha u galaya waxaa waaye in detail baan rabaa inaan idin maqashiyo soomaali oo dhan ay u maqasho macbookga kabarkiisa ikraan way qaadan jirtay habeenkan asaga ah way ka tagtay meeshaas horta waxaa ka ratibantay ikraan inay nooc min shaqo aaday nooc u raba ha noqdo riwaayaadka waa badan yihiin ama xogaha la helaayo inay warqad format oo English ah taliyaha sirdoonka gobolka Banaadir ee u diyaarisay xog dhahiisa waa jirtaa warqadaas formatka Englishka ahna uu isagu ka saxiixan lahaa kolley baahi u jirtay markaas shaqadooda sirdoonka gobolka Banaadir kutga jilco inay ahayd oo ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha inay ka saxiixato inuu ka saxiixdo inuu u diyaarisay riwaayad baa dhaysa riwaayad kale waxay leedahay ikraan markii la waayay oo la isqabsaday oo la sheegay in kaamirooyinka meesha ku xiran aysan saacad ka badan wax duubin oo automatic delete isku samayso oo arrintu ay escalation samaysay farax ka baxday ee lagu dhigay wiilka yarka ina dhiiranay wadna qabad ah ee la adaa waday gaariga si la isu badbaadiyo waxa la keenay clipki ama recording video-ga waxaa caddaatay in aysan saacad kadib horta aysan isdaliid garayn ee wax la cover garaynayo after all ikraan shaqay u baxday macbookgeeda waa qaadatay videoga waa la keenay baabuurkii wuxuu noqday gaari lagu sheegay qooqan laba shirey ah oo dadka Soomaaliga xaaji 50 local name ku yaqaanaan gaarigana laga leeyahay taliyaha nabad sugidda xafiiskiisa iyo gurigiisa loogu adeego ha ahaata sidaas gaarigii asaga ahaa waxaa la sheegay oo ay xogaha qaar sheegayaan in ikraan ay rabtay kursiga gadaale laba shirey baa la yiraahdaa inay raacdo dadka qaar waxay leeyihiin nin baa fadhiyay meesha gadaale bal 2 nin baa fadhiday baa la leeyahay ikraan sidaas ay kursiga hore ku raacday xaaji 50 waxaa la leeyahay nimanka afduubay kuwa kursiga gadaale fadhiya ayay ahaayeen oo was pre-planned shirqool baa jiray oo la dhigay waa rawaa waa analysiska iyo xogaha la ururiyay ikraan lama arag nolol iyo geeri gaarigaas sidee u raacday habeenkii 26 juun soo galaysay dib u rumaan ikraan waxa ugu horeysay oo arrinkeeda la highlight gareeyay hooyadeed oo ordayso markay turka ka timid ay dalku soo laabtay iyada oo laab dilacsan maalmo ay maqan tahay ina guhaad afkay furtay gibilkaygi baa maqan baytar ma hayo intaasoo maalmoodna waa aamusnaa I was trying inaan si channels kale wax ku raadiyo laakiin waxaan ka fursan waayay in aan dawladda federaalka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday
ee kooxda waqtigoodu wada dhammaaday inaan u sheego gabadhayda inay maqan tahay. waxaa dhacday kadib alarminkii xogtu waa badan tahay. 15 bishii hadda aan naga dhamaatay ee July ahayd in uu u yeeray Fahad Yaasiin oo uu yiri imow ina guhaad waa Ikraan hooyada. xogtu waxay leedahay ina guhaad inay salaama noqsatay ma anaa la ii sii yeeray baqdin inay timid. waa la dhiirigeliyay waxaa la yidhi waxba la iskama qaadayo hadday adiga kulliqaan xataa waa lagu raacaya. waa la raacay ina guhaad. nin odaya oo qaraabo yihiin iyo gabar ay qaraabo yihiin baa ina guhaad raacay. Fahad Yaasiin bay xarunta Habar Khadiijo dabaqa koowaad ugu tageen. way fariisatay way sugeen waa u yimid Fahad. Fahad wuxuu u sheegay in uusan haynin Ikraan. ina guhaad iyo gabadhii qaraabada ahayna la socotay meeshii baroor jabsadeen. ninkii odaga ahaa la socday state in shock ku dhacay. Fahad wuxuu u sheegay inay raadinayaan oo ay ku raad joogaan oo ay xoogaa tracking iyo trace iyo ifafaalo inay hayaan laakiin uu 2 maalmood gudahood la soo xiriiri doono. intaas oo hinti way socotaa ina guhaad iyo gabadhii la socotay walaasheed iyo qaraabo sokoox ahayeen. Fahad wuxuu ka codsaday mailkii la socday ina guhaad inuu aamusiyo. waa ninkii odaga ahaa la socday. ninka odaga wuxuu u sheegay meel wax ka bilaabay meel wax ka aamusiyay inuusan hayn. Talyaaniga waxaa lagu yiraahdaa doo volunteer iskaraa la dalbaday garbaha laga galay iridaa laga bixiyay. waxaa la xaqiiqsaday in arrintan ay banaanka u soo baxday 15 July ina tahliil faarax in ay gacanta dowladda ku maqan tahay. maxaa dhacay marka? waxaa cad xogaha la helayo in ninka loo yaqaan Cabdullaahi Kulane jiis mariixan ama Kulane jiis dhowr jeer inay isqabteen in ay ka dacwootay inuu Fahad soo farageliyay oo uu yiri gabadhaydii waaye dhaaf. waxaan haynaa xog dhahaysa in Ikraan ay go'aan ka qaadatay inay iskaga baxdo shaqada sirdoonka Soomaaliya. whatever reason ama nafteeda ha u baqdo ama ha la baadar gareeyo ha la bahdilo ama waxa meesha ka socda ha u cuntami waayaan. Ikraan xogahan hayno waxaa ka mid ah oo xaqiiqo ah halkan United Kingdom inay ka heshay nooc waxbarasho training wixii rabto ku sheeg inay loo soo siiyeen oo soo fasaxeen oo ay timid halkan within matter of week iyo 2 in dib loogu yeeray oo la soo gal George waxbarashadii iyo course-kii waxay ahaataba wadan ku soo noqon. waxaan kaloo haynaa Ikraan hooyadeed inay inta kuftay dhabarka ayadoo ka xanuunsan oo Turki joogto ayna la oosta dalbatay oo ay rabtay inay dhoofto oo ay hooyadeed u dhoofto. Fahad yiri safar gaaban jiraaya u kaada isub ha bixin oo aysan suuroobin Ikraan inay soo baxdo oo hooyadeed u timaado xanuunka gaaray oo lagu sheegay waa lagu qalaa iyo waa serious wax la dhahba. safarkii gaabnaa ee la yiri safar gaaban ku baxa iyo waa ku maqanay hadda ha bixin iyo sub iyo sii wad soo wad. Ikraan ayadna hawada ka maqan waxaan rabnaa marka fariin inaan dirno. fariinta nooca aan dirayna maxaa waaye waxaan u diraynaa Roble. Susaar Roble wuxuu noo sheegay inuu meesha noo joogo gadaashiisna wax laga raadin. waxaan u malaynayaa ergas kaliir inuu yahay cidda uu joogo waa Jaalahawiye 4.5 constitutionka Soomaaliya ma ahan macaahid iyo shuruuc ee waa 4.5
jaalla hawiye intaasaad leedahay, jaalla daarood intaas, jaalla dir intaas, jaalla raxaweyn intaas, jaalla 0.5 intaasaad leedahay. jaalla hawiye ra-iisul wasaare Roble loo joogay. wasaare Roble waxaan rabnaa inaan u sheegno in unugtii habeenkii 26 Juun kilomitir 0 Barfiyan unug waa ciidamada heerarkigooda waa taqaana koox korin unug 12 unugta ahayd ee ku qornayd waardiyaha kilomitir 0 waa xarunta laga ilaaliyo Habar Khadiijo ee dhanka Barfiyan joogtay 3 askari ee ku qornayd waliba in qaraxii Barfiyan agtiisa ka dhacay bishii hadda naga dhamaatay waqtigeedii taariikhda ma haye in 2 ka mida lagu dilay kii saddexaadna aan nolol iyo geeri lahayn. annaga waxaan tuhmaynaa in meeshan organized crime ama dambiilayaal abaabulan ay ku habsadeen dalka. marka la leeyahay milkiilaha dowladda Fahad Yaasiin caddaynteeda marka la leeyahay milkiilaha Fahad Yaasiin milkiilaha farmaajo waa Fahad Yaasiin caddaynteeda intusaad ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa military police asluub nabad sugid wuxuu dhigaa sharci ciidamada qalabka sida taliya ciidan iyo taliya ku-xigeen ciidan bal waxaan u soo joognay sirdoonka Soomaaliya inuu 2 taliya ku-xigeen iyo 3 taliya ku-xigeen lahaado. imagine markii Far Cabdullaahi Sabroloshe meesha ka baxay ee la keenay Jaale Xuseen Urkus ee Eritrea sirdoonka tahay ee laga daba keenay Fahad Yaasiin oo taliya ku-xigeen ah ee Urkus la isku dhacay ee meesha laga qaaday Fahad la promote gareeyay taliyaha nabad sugidda laga dhigay waliba maqasheen taliya ku-xigeen nabad sugidda la magacaabo Fahada weyn Fahada u yar fahada weyn Fahada u yar Abdullahi Kulane wuxuu ka yimid St. Clark America ka yimid ehlu ma waxa farmaajo iyo Fahad waliba especially Fahad sirdoon ehlu ma aha waa journalism. yes ninka kaliya ee godana hor fariistay ee wareystay ee taariikhda lagu hayo waa Fahad Yaasiin. warku waa dheeryahay mar rabo inaan ku dheeraado waxaan rabaa safariin aan u diro Roble aan dhaho Roblo dhiiqaad u timid mana kaa saarayso inaad isdabaaliso iyo inaad dagaha furka gashato ama mujaamalayn lahayda ama munaafiqiin lahayda ama guddi aan waxba ka soo bixin magacaabi lahayda min yariiso ilaa ay hadda guddi la magacaaboya mana hayno wax ka soo nasaacay. hada oo bilaha tawfiiq. Assalaamu calaykum. injineer Abdiraxmaan aad u mahadsan yahay. salaadii ayaan aadaynaa wax yar kadib balse inta ka horeyso waxaan u yeerayaa 3 qofood 2 rag iyo dumarka. hadda waxaan u yeerayaa mid ka mid ah odayaasha ugu muhiimsan waddanka UK oo la yiraahdo Yaasiin Bulsho. Yaasiin Bulsho soo dhaweey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حرجينا يا قودا دبكي قال كل يوم وحكي كي دتك كشقينا ماشي المقصد. هذا وقالنا أنا قد مانتين هذا نقولنا. فتعرف نقول هذا ناس هذا الله معها. مركو حن أنا قرر ربعنا إلى هذا وزير كأمنية يتليها عينك إنه بسوق ده يتليها مع تقبل كبنات نيك هيست إنه بسوق ده هيستو يبليس كقبل كبنات هيستا مسؤوليتنا صحيح كل يهين وحرجينا إن شقداس قوداس وكل عيدك وشقينا يسي وحق إنه إهل كده لا قف بن آدم كدب وقال كرا ومدها الدب لما قال كرا نمسوق ده نيسي هذا تقنانا وده كان إنجليز كي أمريكا كان نيكي معنا أنت سير قبته وحير لوك قالوا يعني ما له كم على قال لكن وحيلا المهدي إن الصوماليين وما تحنا قصر يسجل لكن وحيلا يكبر ينا قفك ولا قبكرا سرب لو قبكرا دولة دي وحكي شيء تلو قبكرا لكن وح مهمة
warqoysku qof kastaba hadda ha ku talagalo waxaan ka hadlayaa wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda iyo midka gobolka banaadir haysta labada gobolka banaadir haysta waxaa muhiim inta kale anigu waxaan leeyahay waa madaxda qaranka riboorta loo geeyay qaataan laakiin mas-uuliyadda runta ah waa dadka waddankaas niisaan ka shaqeeya iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha niisa ee gobolka banaadir si la sheegahayo dariiqa martaa u baahan tahay maxaa yeele gacantaada in ku damayso qofkaasna waxbaa dhalay caruurta dhasha daaweysa waa xanuunsanaysaa waxaa ilaahay ka baryaynaa madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha rooble iyo dhammaan inta u ehel ah maanta dalka ilaa laga gaaro xil wareejin ama doorasho idinkaa madax noo ah idinka ayaan taageersannahay waxayna rabnaa laakiin gabadhaas ikraan oo cabaadkeeda dhulkeeda u batay anu wax kale ka hadli maayo gabadhaas maanta halkaa noolaga yeeray odayaashii baana ku hadlay magaca golaha guurtida UK waxaan codsanaynaa waa codsi ani kole yaasiin aan ahay waxaan ilaahay ka cabsanaya bini aadan ka cabsan maayo maalin bana xamarkaasaan tagnaa dalka waa tagnaa waa joognaa mana la arko howlun baan u tagnaa ilaahay mahadiisna way laakiin waxaa ilaahay mahadiis ah in dowladdu maanta ay joogto waqtigii doorashada war xildhibaano oo aad ehelkaada wakiil u ahayd beri inaa u naqataa rabtaa wixii cadaaladaha ka dhexan wixii runtaas ka sheeg kolley inaa gef ilaah wax magacaabo nin la magacaabi kara ninaa ilaahay magacaabin ma magacaabi maayo antaasaa idin sheegaya taasna xaqiiqda ah waay waxaa garan kartaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ka gaaro 39 sano maxamed amiin maxamed saadiq u ahaa rullow iyo nin la aamin u ahaa maalintii 40 oo gaaro subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usoo dejiyay aayadaha iqra la yiri oo macnaha oo naqdin risaalo ilaahay samaawi u timid ehelkiisa ku xigay dad ama waalid u ahaa yaa waxaa ku bedelay maxamed majuun iyo maxamed saaxib anaga inta fadhino nin walba ninka jagada ku qabto waa calooshka gubana waa isa rabo laakiin waxaan rajaynayaa gabadha miskiinta ah oo aan waxna galabso idin shaqaynaysay cilmigay baratan idinku shaqaynaysay waa gafi kartaa laakiin ehelkeedii ma gafin ehelkeedina u sheegtaan haddaa haysataan ehelkeedina u sheegtaan way xaqa ah annagaa haysano saasaan ku haynaa sida rooga u haysaan oo aad u haysaan xasan daahir u haysaan oo kale waan haysanaa dhaha أبرم لكن محمد ما أقول إني نجي نسمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين برشا ما سنيا هاي أنت عن صلاة الجارين لبعض دقيقة وحربا إن نسيو من مهمة وكتر جالية دكتور علي عبدي بابا قدوميها جالية كونفور قلبي أهنا قدوميها حسبية من نمط عدالة صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتبون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. رنتي ديد ولا لسه كوي ما يتا عدالة. عدالة سديت يا أبو هديت ملك هلاو عدالة مئة ولا السياو مئة عدالة مئة ولا توغاو عدالة هديت من نقداسو عدالة ما أتى وح مقدس إواية سوابتو نولها نول الدنيا ذاك النول ما يكنول يا عدالة يا أمني يا كنول يا هدي عدالة يا أمني قال وايو والجراود ملك نول ما جرتو دولة دي ما جرتو دد دي ما جرتو أنا فهمتي ما فيلاني دولة دي كعاقة بعدي يعني هندش يعني دول دبين يقول وذيال يهبل على الواي يهبل على الأفضلتي دي الدون تبو مضاري لكن ما يابقى لما كنت مليسيتي إن يعني بينما ماتي لك حسوقي بشرح لك أفضل وذي حدنا يعني إلا يحدى ميس كهوستيس كجرو ورقبك هديوش الدم بليا وإن الصائع ذيا كبعد عدالة لشينا ولاقي واجبات شيء أي لكفوليا لكن والواي ويعني أرسل يعني واحد الأكبر يكرم إيه أن أكسبت بالواي يعني قف بني آدم إلا وايو
يعني ولي بهدنا قبل يعني runtii waa wax yani wuxushnimo waaye sababtoo gabar ay waaye gabar waaye walaal waaye habartii la qawi waaye haddii yani aas-aaskii dad oo bini aadanka waayo hooyo yani walaagii fadhi dhan hooyo ayaa dhashay yani hooyada gabar wiinaati waaye runtii gabar maqan yani waa wax la dulqaadada kora mee marka maylaya gaal jecel iyo xawaalle haddii isin digri iyo benifl amal laga taagne hadda nabiga allah siinka bashiriyo gaal jecel iyo xawaalle maylaya haddii isin digri iyo benifl amal laga taagne hadda nabiga allah siinka bashiriyo haddii isin dad atigne hadda shalay yani may dhegi jirnay reer hiiraan jeela ama jidka hadda tii hal soo dhago sabab jeela ama jidka yani mal aan dulqaadada faro gabar inay maqnaato no runtii sababtoo كنت طلوع قدوت يا دلابي ما شاء الله تبارك الله يعني او البنات يا ما اكبر كورو يعني قبل يعني ولده ولي ده محمد ابو جورتي شو والله عبد القادر كورو بيقول الا وايو ما يا رجال يعني غير حواله حديث دغري برف العمل نغدا سان نبي الله سيد بشاريو حديث دد مستوي ديا سان جدا رغا سلوكسده جدارك شرطة تنكلم مايليا الدنبستي روبلو قليلك والغولة هستا روبلو قليلك والغولة هستا نتي شرع أحيبة تقادم وصول نقضي قليلك والغولة هستا روبلو صومالي وحيتان في ليسي خيس يخماس بل سوحا كلا يهي روبلو لها نقضي روبلو لها اسكو نقضي صوماليا وحي كافي ليسي خيس يا حماس بل سوى حدو اكتاي روبلو لها روب نقضي ويسي لها اسكو نقضي قال جعل يا حوالي جد كانوا بلده والسلام عليكم ورحمة الله مدن علي مروي وهذا السلام انما ولا لا شرفت له قدامي كاس قدامي كاس waxa Roble ana qoto wuxuu ku fadhiyaa 4.5 asaan mas'uuliga laakiin dhaqan markay noqoto Roble ana mas'uul ka ah dhaqan ahaan curad ahaan ana ka curadsan Roble sagaal qodob oo kula heshiiyay midowga musharaxiinta sagaalka qodobba waxba kama soo bixin ana wuxuu yiri 4.5 ahaan hawiya ugu fadhiyaa ilaa hadeer hawiya ma ahane go'aan uu isaga leeyahay uu qaadan karo oo toos u qaadan karona ma jiro waxaan meesha ka cadeynayaa Roble inuu yahay nin aan mowqif lahayn nin aan talo lahayn nin aan go'aan lahayn nin la xukumo marka waa isku soo laabanayna bacslaada Roble dadka isku haleenayo oo rabo inay 4.5 ahaan dhahan hawiya tahay ha u maleyn Roble inuu ku fadhiyo ma kursi hawiya nin la loo keeno waaye wax go'aan iyo talo aan qaadi karin kulanajiis oo qalad gal xil ka qaaday asagoo maqana xilka lagu soo celiyay go'aanku ka qaato ayaa ku ogaanaysan Roble qofku yahay waa inoo bacay salaada assalamu alaykum